كسرنا وطن كمرحلة سياسية فوش حملة وقلي أنت سنك سوق قبينيا تدبس النضاد بوطن كهندرابنا أوكي تدبس النضاد بوطن كهندرابنا حتى هندراب كنا وكويل شقينين كانوا وحوي يسدوه وسارد التكنولوجيا قبل كساحل تدبس النضاد نوح لشقيني دولتي ولشقيني والوهندرابنا حتى بكها وحكسي درن أنا بالكنير بالوحي لو ديبي بنو إيجدونا نينكادن إحلو ديبي وزير كحيان أها قوليه وزير هذا دحفديي مدحتويدي هور دحفديي ما أنت إن لوانس عسليو وحن لسيا ولبنا عبد الرحمن عرو مشرح كله بل وحا سينو دقيساناي marka hore bal ninkan la dhageyso inta inaan hawshaasi gelin aniga ayaa go'aansaday in aan iska casilo halkaan u hayay xukuumadda waxaan warkayaan ku sheegay inaan warkayay hogaaminta dalka inuu ku fiican yahay Muuse laakiin maadaama uu sanoodu hayay waxaan u arkay in danta Soomaaliland ku jirto in la doorto gudoomiyaha musharaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro way ag wuxuu Cabdiraxmaan Ciro waxaan madaxweynaha Soomaaliland waxaan moodayay buu yiri inuu hogaaminta kaga fiican yahay 7 sano la moodayay 7 sano waxa la moodayay inuu Muuse kaga fiican yahay laakiin maanta uu soo baraarugayo ogaaday ninkani inuu Cabdiraxmaan Ciro kaga fiican yahay wadanka bal hadayna hadalkan isqabadsiiya nin wuxuu ku leeyahay mid kala iscasli maalin dhaweydo meel isna yar haystay horta waxaan iscasliyay mid qana waa wasiir ku xigeen kan baa ugu sareeya gudoomiye ku xigeenka maxay teknoolajiyada maalin dhaweyd meel waxaan ku arkay afku qorin gobol Bayern Munich waa Germany mid gudoomiye ku xigeenka xisbiga kulmiye ka ah waa ayay iscasli waa anigoo mid beeraha New Zealand iska qota ku iraahdo waxa tahay gudoomiye ku xigeenka xisbiga wadaniga gobolka New Zealand halka iscasli oo shir jiray qabto okay nimankaas iscasli mid baa wuxuu yiri 7 sanaba man miir qabino waxa ku jira xaalad kale hadda Musabbix ma sixroolayo dadkan miyuu sixray markuu xilka u dhiibanay ma dhaandhaamin bay ahaayeen dad wuxuu dhiban yihiin bay ahaayeen ma korniinkooga barka dhinaayeenoo waxay ahaayeen 12 jir oo dabadeedna imika qaangaareen oo aqligooga bislaaday Musabbix ma wuxuu dirtay markaa arday dugsiyada hoose dhiganaysa oo dabadeedna dugsigii sare la jaamacadii kaga baxo markii qalin jabiyeen digrii qaateen aqliyeystay intaas oo dhan miya maxaa dhacay hadda waxa dhacay sheegay qofka bini aadamkii waxa fiicnaan lahayn intuu ilaawan isasilo in xukuumadan oo soo garan waayo iska tago laakiin indhahaaga adoo saawarka inta wax lagu diibay qabaxdaada aad iska qaadatay dibadda xisbiga waddan markuu wuxuu sameeyay bahal lacaga oo malaayiin ayaa waxa laga soo qaaday Djibouti Qatar iyo Soomaaliya lacagtaasi waxa lagu sameeynayaa in la isku dayo sidii xukuumadan loo fishilin lahaa oo waxan ka socdo Soomaaliya Itoobiya iyo Imaaraadka iyo dhulka la bixinayo iyo masha hawlahan iyo ictiraafka iyo dawladda waxan sidii loo mashquulin lahaa iyo sidii niyadda looga dili lahaa dadka taageersan xisbiga kulmiye oo la yiraahdo waashiiba waa laga kala yaacay oo loo yiraahdo waarina kaahiniga Siciid Suruba soo socda Musabbix baa beritoona laga yaabaa inuu kuba biiro wadani madaxweyne ku xigeenkii waxa soo madaxweyne ku xigeenka laftiisa la soo wadaa oo bariyahaaba ka dhax qadeynayay isagana warkiisa marka uu iscasilo ayaan idin sheegi doonaa kharashka lacagta uu qaatay Musabbix wixii uu diiday waxa soo hadaba ninkan uu cadeeyay wuxuu wadanku u handaraabay yaani waxba la nooga dhiibay 7 sano kadib buu sidoo xayraanka u ahaa baa loo dhiibay $100 iscasil baa la yiri oo iska dhaqaaji dawladda Djibouti intana baasaboor yar baa loogu ballan qaadaya khalaas guri ka qabiyaha bugsanaya Musabbixina wuxuu yiri adeer hantidan ummadda ilaali lacagta wixii mushaharkaaga dhaafsiisan ma jiro aday ku taalaaniyo bangi la iskala baxay lacag iyo wixii iskaga soo socon jiray baa la xiray ninka Musabbix waxa cawaasif ku furan waxa soo lagaga shiday waxa koofiyad bacla iyo suldaan cararaya waxa balaayo cararaysa waxa weey maxaad wax noogu dhiibi weeyay
marka waxa weeye ninkan muuse horta wax loo bixiyo ninkii maanta doonayay iscasilayo wadani tag waa lagu dhiibayaa waxaga lacagta qadar iska soo darso lacagta Djibouti iska soo darso lacagta Soomaaliya iska soo darso waynu eegi doonaa halka ku dhamaato laakiin qofka mabda' leh sidee bay aqliyadiisu xataa eeg waxa weeyaan nimada waa inama dhalinyara qofku markuu dhalinyaro yahay oo waliba xil hayo maaha YouTuber maaha Facebook imka garanay nimadii yaraaye TikTokerada ahaa inta wax loo dhiibay iskaga tagay duwaacadu uu shaqaysanayo shaqadiisa ahayd iska daka laakiin anu waxaan la yaabay ninka dhalinyarada ee 7 sano Muuse Biixi la shaqeynayay mushahar dawladda ka qaadanayay golo wasiir soo dhex fadhiisanayay shirar qabanayay dawladda saa u soconayay aanay 7 sano isqabaneen noo sheegin waxay ku xuntay difaacay walibana inuu maalintii u dambeysay iska yiraahdo waxa weeye xukuumadan waxba ka siiyo oo 7 sano waalna amar dadkana waalna oo miir qabin laakiin way iska cadoo cid waalan ma jirto walaalo xil loo dhiibtay waa kuwii noo shaqeynay qaranka ka shaqeynayay waxa weeye waa in la shaqeynaysay in hoosta huwanka ka ahayd iyo in inta waxooga ay qaateen halka ka baxay oo aan isaasilay hadal xumada kaga dareen marka isaasilaya waxa iga daran hadal xumada 7 sano handaraabna xabaal noo dhiibi way wadanka kana ka isma xajin karaya waa nima la soo qasbo leeydi waxaagana qaada kamarada hor fadhiisto yalla beeki iimaanku wuxuu ku jira waxaaga oo bismilaysato midna ogow mustaqbalka wadanina ku diran maayo ninka maanta dhabarka ka jibiyo kulmiyo arkayo wadanina diran maayo ujeedka barito looga jeedana waxa weeye sidii xisbigii wadani ee udub 2010 ku dhici jirtay ee xilal badan iyo wasiiro badan iyo dad badan qaar ba mabaadi sameeyay wasiiraha iscasili qaar ba Axmed Silaay reerkooga qaar ba rabeynay sibi qaar ba isqabteen daahir riyaale waxa weeyaan waxay doonaan haadaan rag ba iscasili ka tagay marka lagu fashilinayo la isku dayayaa intaas oo bahal wasiirada qaar bi soo galiyay suuqa inay iscasiliyaan way beeniyeen marka waxa soo dhanbay akhriyeen marka waa barnaamij socda oo loogu talagalay bal in dhinac walba laga fashiliyo xagan ka fashiliya xagan isku daya bartanka dalooliya waxa soo dhan way akhriyeen laakiin qolooyinka kulmiye jabeelay maagiino saasi weeyaan maalinta la saxeexay waxooga geeraysa loo sii daayo intii kan guriga ku raacdeen way iska soo noqon inta kalena way la joogi waligaaba daal ka cun codkuna waa meel dadka Soomaaliland way og yihiin inta u danta inta qarankooga la baxsan karta inta difaaci karta inta aan Soomaaliya iyo balaaye iyo Djibouti iyo 10 heshiis wax soo galay aan haysan war barnaamijka share garee meel fog gaarsii huwanta iyo cadawga gudaha iyo balaayada iska shanayna iga gaarsii aad iyo aad baan ku